afhayeen Siciid Aadan Siciid ayaa ka hadlay howlo samafal oo uu u waday ururka Kaafiye Foundation oo ah urur samafal ah oo taakuleeya dadka haysta ganacsiga yaryar ee maalgelinta u baahan kaasi oo uu maalmihii u dambeeyay ka waday gudaha degmada Galadaga ayuu ka dhawaajiyay inuu maanta si rasmi ah u joojiyay isagoo sharaxayana sababaha uu joojiyay ayaa wuxuu ku jawaabay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta ka hadlayaa shirkiga jiraayad kaga hadli doona insha Allah taala waxaan waday oo la shaqeynayay urur samafal ururkaas oo la yiraahdo Kaafiye Foundation oo ka shaqeeya gobolka Sool iyo gobolka Buuhoodle gobolka Sanaagna ay maanta ugu hortay degmada Garadag ka bilaabay shaqadaas ahayd inuu investment u sameeyo ganacsatada yaryar maalgelin yaro bishii $5 siinayay mashruucaas oo aan waday in badan dabada ka waday 4 bilood oo loogu talagalay 4 bilood markay dhamaatana insha Allah ay qorsheysnaayeen inuu cash forwarding bilaabo 250 qoys oo kala oo cash forwarding marka la leeyahay waxa weeyaan mid gacanta laga shaqeeyo adigu sidii biyo xidho kala arrinkaas markii aan waday waxa jirtay inaan hore uga shaqeyn jiray bisha cas mutadawacnimo ugu shaqeyn jiray aan 2 jeer tiraba marna 200 qoys qornay marna 200 qoys aan qornay liiskii 200 qoys ee ganacsatada ahayd ee bisha cas maalgelinaysay ayaan raacay kiibaana ku shaqeeyay qodkii qoys ee kordhinta ahaana waan ku daray criteria waxa noogu jirtay qofku inuu kaarkii dhalashada leeyahay qofkii ka dhalashada kaarkiisa dhalashada loo soo wareeyay kii waayeen wax loo soo wareeyay kaarkii codbixinta qofka in la sawiro dadka loo yimaado la sawiro sawir kura laga qaado ayay tani fududeynaysi waxayna cadeynaysaa inuu qof Soomaaliland yahay oo dalkii degmada u dhashay ayay taasina xaqiijinaysay intaas kadib markii aanu shaqadiisa ku bilownay waxa timi propaganda ka timi qolo siyaasiyiin iyo golaha deegaanka ee degmada ka timi ayaa shacabkii waxa la yiri Siciid wuxuu shaqeynayay urur buu shaqeynayay kaarka u sawiray waxa weeyna nasiib daraad weyn ruuxantii anu haddaan kaar urur doonayo urur kama mid yahay horta anigu nisfaana wanaagsan anu xusbi qaran ma kamid ahay wadan la yaado kriteeriyadiisana loogama baahna inuu kaar urursado cidii kaar u baahan anu kama mid yahay horta ama barwaaqo sheega ama waxa sheegtaan ataash sheega ama kuwa kala sheego anu urur kama mid yahay ee wadani baanay wadanina ma baahna kaar waa nasiib daraad aad u weyn ruuxantii in shacabka wax loo qabanayo propaganda la geliyo waxaan hore ugu dulqaatay oo aan hore uga aamusay xamar buu shaqeeyaa bali iyadoo mutadawac reer Soomaaliland uu isoo wakiishay oo aan garada wax siinayo biyo siinayo ayaa leeyahay xamar buu shaqeeyaa u dulqaatay maanta dulqaadan maayo waxaan sheegaya boqor buur madow biyaha soo waday horta jooji 48 kiilo annaga roob baan helayo uma baahnin daan garadagnahay meel kale gee adiga intaasan kule waxaan kaloo leeyahay ururka Kaafiye waaniga challenge-giidin ku soo diray Gmail-kiina ku diray caqabadii garada ka timi waaniga Gmail-kiina ku diray shaqadaana waan design gareeyay waana kansalay meel kale u baahan geeyay dadkana waxaan leeyahay yaa ayuha alladina aamanu jaakum binabayin faasiqun fatabayinu billahi war marka munaafiqiintu warka idin keento iska xaqiijiya ilaahay anigu waxba ima yeerayso in shacabkayga indha lay geliya haddaan kaar u baahaneen 2,000 oo kaad ayaan garada ka heli lahaa kuwiina la doortay iyo kuwa hargeysa jooga siyaasadda ka sinaystaba intiinaba garada oo kaga saameyn badan waxaan leeyahay war ummaddu way idin sugaysaa way idin doorato fartooda idin siistay idin mana damqada baahidooda anigu waa idin ka damqashay dareen badan laakiin waxa tan maanta igu kaliftay inaan marshuuci kansalo oo samafal kasto aan waday aan kansalo adiga gacalaha soo kala dhamaada golaha deegaanka garada waxaan leeyahay idinku soo kala dhamaada maayirka degmada Garadag Maxamed Cilmi Maxamuud arrinkaas uu ka madax bannaayay ruuxantii waa shakhsi jecel dadkiisa wax loo qabto tixgeliyana in dadka wax qabanayana og aad iyo aad baan isaga ugu mahad celinay laakiin qolyahan duraya waa iskaranayaan waxaan leenahay war saa lagu ma gaaro limin iyo dadkii doortay toonayna wax ku tartaane xasarada dadka ka daayo idinku kala dhamaada Maxamed Gumburi Bulsha TV Garadag